baaqaan rabaa marka halkaan inaan ka jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ugu baaqayaa inuu dhaga laab u daloola inuu ku dhagaysto baaqa aan halkaan ka jeedinayo maanta kow waqti ayaa horay dalka iyo dadka uga soo lumay ee fadlan waxaan leeyahay mid kale ha ka sii luminin waqtiyaa soo lumay wax lagu qaban karay in la qabta ay ahayd waxa la qabanayo weliba ay caddaayeen oo liiqiin la qaban waayey mid kaleo haddana waxba lagu qaban doonin in ummadda lagu sii hodo sax ma aha waqtiga yar ee ka haray xilli xileedkaaga mudana madaxweyne hal arrin ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ila habboon kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagugu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arrimooda u furan yaan ugu baaqayaa gunaanad walaalayaal ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa inaan idin xusuusiyo waa muhiim arrintan inaan idin xusuusiyo doorashadii dimuqraadigaheed ee ugu dambaysay ee dalkan ka dhacday ee 1969kii waqti dadka hadda maanta madashaan meeshaan taagan goobtan taagan oo dhan aanay joogin ama badankoodu aanay joogin waxay ahayd doorashadii dimuqraadiga ee ugu dambaysay dalka ka dhacday cillada doorashadaas ay lahayd awgeed iyo cawaaqibkii ka yimiday oo xukunkii dimuqraadiga ahaayoo dhan oo minguuray oo meel kala degay dadka soomaaliyeed waxay ku qaadatay 50 sano maanta maruu haysaa cawaaqibkii ka dhashay inay la tacaalowhayaan welina ay wax badan uga dhiman yihiin dadkana maanta waxay aamineen inay dimuqraadiyad iyo doorasho iyo sanduuqa in la aado madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre iyo xukuumaddooda waxaan leeyahay waddo kale oo haddana muddo kale in ay dadka soomaaliyeed ku dhumaan ha ku hagina waddada saxda ahayd dadka ku toosiya qaladaadka dhacay awgood waxaa dalkan iyo dadkiisa ay u horseeday mahadho siyaasadeed oo ilaa hadda taagan sidaas daraaddeed soomaaliya ma xamili karto qalad kale oo taariikhi ah oo dhaca xilli ay ka soo bogsanayso jahawareer muddo dheer ay la tacaalaysay soomaaliya sidaas daraaddeed qofka ama kooxda maanta diidan wadatashi siyaasadeed oo lagu gaarayo heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah ee ku saabsan doorashada qaran waa qaran dumis waana dowladiid qofkaasaa qaran dumis ah dowladiidna ah maanta ha laga wada tashado dalka doorashadiisa iyo dowladnimadiisa qofka shaki gelinayo ama kooxda gelinayso waa kooxda maxaanku idhaahdaye qaran dumiska ah ama maxaanku idhahdaye dowladiidka ah ee maanta soomaaliya ka jirta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu ducaynayaa in ilaahay tubta toosan iyo talada toosan waafajiyo soomaali badbaado nabad hor u socday u baahan tahay madaxweynaheenna talada toosan allaha tusaan leenahay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinka aan ka hadlayay muxuu ahay kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqal taagayo ma aha mid ku kooban isaga oo keliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka madaxweynaha la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka golaha shacabka kororsiimo xilli xilaadka aqalka sare kororsiimo guddiga madaxa bannaan ee qaranka xilli xilaadka guddiyo kale oo badan oo dalka ka jiro waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan xasuusiyoon u sheego guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xilligiisa uu dhammaanayaa sanadka soo socda bartamihiisa iyo ka hor u dhammaanayaa sharciga guddigaas lagu dhisayna wuxuu qeexayaa markuu xilligu dhammaado guddigaasi sida uu noqonayo soo noqoshadiisa in loo kordhi karo xubnaha ku jiraa inay soo noqdaan kulli qaanuunkaasaa tilmaamaya inuu guddigu maanta marka keensado mashruuc howlqabad oo kaas ka sii dambeeya waqtigaas ka sii dambeeya waa qabanaynaa in ay leeyihiin hab maxaanku idhahdaa diiwaangelin oo qaanuunka aanu tilmaamayn lagama sugaynin ayaga
marna siyaasiyiinta waa laga sugaayay inay muxuu ahay xeelad siyaasadeed iyo meelo ay ku laalaabtaan laakiin guddiga dastuuriga ah lagama sugeyn madaxweynuhuna qaribaadda oo hay-adaha dowladda iyo dowladnimada uu qaribiyay ka mid tahay inuu guddiga ka yeersiiyo hadallada shalay iyo warbixinta shalay ay keeneen dalka waxaan la aqbali doonin xilliga xilaadka dadka Soomaaliyeed ay u igmadeen hay-adaha dastuuriga hadday dhammaato lama aqbali doono jiritaankooda shacabkuna ma aqbali doonaan adduunyaduna ma aqbali doonto yaan la geynin Soomaaliya firaaq dastuuri ayaan laga abuurin ma dhacayso horena uma soo dhicin intii aan soo jirnay mar kasta waxaan ay dhimaadaan oo isku day sidaan oo kale u yimaadna foolxumo iyo qaab darro iyo maxaan ku raad laablaab iyo Soomaaliya oo magaceedu xumaaday iyo madax badan oo ku ceebowda ayaa ka dhalan jirtay war meeshaas wada ma jirto horeyna waa u sheegnay dhowr marna waa ku celcelinay wada ma jirta dhinacaas wadada waxay jirtaa waxaan leeyahay hoggaanka dalka hoos ha u soo dagaano ha u yimaadiino saamilayda siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan muxuu ahaay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka xisbiyada siyaasadeed ee sharciga ah bulshada rayidka iyo intii kale looga maarmin oo dhan qof kasto aan looga maarmin mansabkiisa iyo meeshiisa in loogu tago talada loogu geeyo ay mudan yihiin waxaan rabaa mar kale ilaahay waxaan ka baryayaa in tubta toosan dhammaanteen iyo talada toosan uu nawaafajiyo Soomaaliyana uu dhibaatada saaran oo alla ka qaado laakiin ilaahay annagoo noo sheegay sida dhibka looga baxay inaan yeelnaan laga rabaa dadka Soomaaliyeed qulubtoodana Allah isku soo duwo xurriyada 60 guuradana mar kale waxaan leeyahay hambalyo wali waa soo taaganahay waa u jeednaa waxasan waana ku taaganahay inaan codkeena kor u qaadno waxasan waana la gaarayaa dadka Soomaaliyeedna waxasan yaanay ka aamusin codkooda kor ha ugu qaadaan leenahay meel kastoo ay joogaan ayagoo codkooda kor u qaadayo waa ka nimiday xilligii la isdilayay oo madaaficda iyo xabadaha iyo balaayada la isku ridayay waa ka nimiday dhiig la daaday shabaabaa noogu filan yaanan gadaal loo celinin dadkani waa ka yimideen heerkii ay aaminsanaayeen awoodda siyaasadeed in qoray iyo qarax lagu tegi karo waxay u yimaadeen heer ay aaminsan awoodda siyaasadeed cod iyo sanduuqa in lagu tegi karo yaan la tusinoo la dheen cod sanduuqa kuma tegi kartide qorayaad ku joogi kartaa ama ku bixi kartaa yaan dadka la tusinaan leenahay mana dadkeenuna waa ka koreen si gaara mar kale waxaan hambalyo iyo bogaadan ugu dirayaa dadka reer Banaadir wixii aad muddo dheer ku haminayseen albaabkeedii la furay waxaan si gaara mar kale ayagana u hambaleynayaa xildhibaanada labada aqal iyo raggii gaar ahaan u istaagay dadka ka muuqday qadiyada gobolka Banaadir oo ka mid yahay xildhibaan Cabdulqaadir Asable Cali iyo maxaan ku raada xildhibaanada kale oo faraha badan oo dhammaantood har iyo habeen u soo taagnay sidii qadiyada gobolka Banaadir waxaan sidoo kale ayagana aan u hambaleynayaa odayaasha dhaqanka iyo dadka u soo taagnay laakiin hawshu waa meesheedii hadday dadaalkeedii iyo muhiimadeedii meeshii ay ugu mudneed hadday taagan tahay waan u wada istaagaynaa waana gaaraynaa maalin dadka gobolka Banaadir ku nool ay dhisteen maamul ayagu ay leeyihiin oo ay uga qayb galaan nidaamka federaalka ah aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh